waxaynu ka bilaabaynaa qoysaskaasi qoyska Rothschild oo ah qoys asal ahaan ka soo jeeda Yuhuudda Jarmalka iyadoo macnaha magacoodu noqonayo gaashaankii casa waana qoyska daaha dabadiisa ka xukuma caalamka iyagoo haysta kala badh hantida caalamka taala waxayna bilaabeen gacan ku hayntooda dhaqaalaha adduunka sanadihii 60meeyadii ee qarnigii 18aad xilliga oo Amschel Rothschild uu sameeyay in uu shantiisii inaan u kala dhiibo xarumihii maaliyadeed ee waaweynaa ee caalamka ku kala yaalay gaar ahaan dalalka Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Austria. qoyskan ayaa hantidiisa ku sii ballaariyay markii ay maalgelin la dhinac istaageen qoysaskii iyo xukuumadii xukumayay qaaradaha Yurub iyagoo qoysaskani saameyntii dhaqaale ee ay lahaayeen culays ku saaray dawladda Ingiriiska markii uu Ala Rothschild deyn dhaqaale siiyay xukuumadda Ingiriiska kaasoo ay ku bedesheen ballanqaadkii Balfour ee wasiirkii arrimaha dibadda ee Britain soo saaray sanadkii 1917 kaasoo ujeedadiisu ahayd sidii dal Yuhuud leedahay looga yegleeli lahaa dhulka Falastiin. xilligan la joogana qoyska Rothschild waxa loo haystaa inay yihiin qoyska ugu taajirsan caalamka iyagoo ay gacantooda ku jirto kala badh hantida dunida taala isla markaana darawaliya suuqyada dahabka ee caalamka sidoo kalena leh bangiyada waaweyn ee dunida ku yaala qaarkood saxaafadda Mareykankana saameyn ballaaran ku leh iyagoo ah qoyska leh telefishinka caalamiga ah ee CNN. arrinta la xuso mudane waxay tahay in xubnaha qoyska ka tirsan aan meel fagaara ah ka soo bixin oo lagu arkin sidoo kalena aanay dunida ku marin magacooda rasmiga ah. qoyska labaad waa Imbraadoriyadda Rockefeller oo tan iyo sanadkii 1870 la yaqaanay xilligaas oo John D. Rockefeller aasaasay shirkadda shidaalka ee Standard Oil Company taas oo ka dhigtay inuu noqdo ninka dunida ugu qanisan xilligan hantidiisuna gaarayso $400 bilyan. hantida Rockefeller ee xadaafkii waxay xilligii bilowgeedaba ka caraysisay madaxweynihii Mareykanka ee Roosevelt oo warwar ka muujiyay khatarta ay yeelan karto hanti intaa leeg oo gacanta ugu jirta hal qof oo kaliya. xilligaana qorshayaashii Rockefeller dejiyay waxaa ka mid ahaa maalgelinta dhismaha qaramada midoobay ee magaalada New York iyo dhismaha xarunta kale ee Bilderberg oo ah meel ay ku kulmaan dhaqaalayahanada waaweyn iyo mulkiilayaasha hantida badan haysta. ilaa maantana qoyska Rockefeller waxay wadaan hawshoodii ganacsi iyagoo leh in badan oo ka mid ah bangiyada waaweyn ee caalamka. qoyska saddexaad ee ka mid ah qoysaska qaabka qarsoodiga ah oo xukuma caalamka waa qoyska Morgan oo soo caan baxay markii odaygii ay ka soo farcameen ee John Pierre Morgan siiyay xukuumadda Mareykanka ee xilligaa joogtay deyn dhaqaale oo gaadhaysay 35 milyan oo waqiyadood oo dahaba sanadkii 1893 xilligaa oo ay dawladda Mareykanka ku timi culays miisaaniyadeed oo adag. kadib markii ay reer Morgan gacanta ku qabteen isu socodka suuqyada dahabka ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu suura gashay inay aasaasaan qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalkaas Mareykanka iyagoo xilligan la joogana qoyskaasi haysta kaydka dahab ee ugu ballaaran caalamka. qoyska DuPont ayaa ka mid ah qoysaska aynu barnaamijkeena kaga hadlayno iyadoo qoyskani ku soo shaac baxay saameyntii ay ku lahaayeen farsamaynta iyo soo saarista baaruudda oo ay gacanta ku hayeen tan iyo sanadkii 1802 waxaana shirkaddii qoyskaasi lahaa ee DuPont ay soo saari jirtay 40% bumbooyinkii iyo waxyaabihii qarxayay ee kale ee loo isticmaalay dagaalweynihii koowaad ee dunida. markii dagaalkii labaad ee dunidu socdeen shirkaddu waxay soo saartay maadada plutoniumka ee qaybta ka saanada atomikada ee dalka Mareykanka. qoyska reer Bush ayaa iyaguna qayb ka ah barnaamijkeenan. qoyska oo ah qoys siyaasadeed waxay ka soo farcameen Prescott Bush oo dhashay sanadkii 1895 markii dambena waxa uu madax ka noqday bangiga federaalka Mareykanka kaasoo wiilkii uu dhalay George Prescott Bush iyo kii uu sii dhalay ee George Junior Bush ay labadooduba madaxweynayaal ka noqdeen waddanka Mareykanka iyagoo labadooduba duulaan ku qaaday dalka Ciraaq. waxayna qoyska reer Bush ka yihiin dalka Mareykanka qoys siyaasadeed oo saameyn ballaaran ku leh waddankaasi waxaana ay leeyihiin ganacsi ballaaran oo isugu jira bangiyo iyo shirkado dhanka shidaalka